casharadii aan ugu talagalnay wadada konfoorka waxaan rabaa inaan sharaxo chapter complex number. chapterka labaad waaye buugga marka wuxuu leeyahay objectives buugga 12aad. objectiveska waxaan rabaa inaan videogan ama clipkan aan marka hore ku sharaxno laba objective. By the end of the lesson, casharka dhammaadkiisa learners ardayda should be able waa inay awoodaan to classify inay kala qaybin karaan real and imaginary parts. casharkan markaad dhegaysatid waxyaabaha aad lagaa rabo inaad xaqiijiso waxaa waaye complex number markii lagu siiyo 3 plus 2y kee real kee imaginary inaa kala sheegi makanaa real makanaa imaginary kee inaa kala sheegi marka real iyo wuxuu leeyahay complex numberku iyo imaginary qayb real ah iyo qayb imaginary yahay. طبعا real partku waa real numbers. real numberna waxaa la yidhaahdaa number kasto oo ka fakeri karto any number mid minus wato mid plus wato zero mid jajab ahaan u qoran by numberada aan loo qori karin in the form a over b any number waa real number. imaginary waxaa la yidhahdaa wax allaala wixii calaamadaas ay wato number kastoo ay wato waxaa la yidhahdaa imaginary. so hadda tusaale ahaan complex numberkan qaybtan waxaan leenahay waa real part qaybtana waxaan leenahay waa imaginary part oo imaan doona marka objective-ka wuxuu ku yidhi classify inaad kala qaybin karto real and imaginary parts of a complex number. objective-ka labaad waxaa weeyaan use inaad isticmaali karto the conditions shuruudaha from the equality of two complex numbers. laba complex number waa la dhihi karaa equal waaye marka laga helo conditions shuruudo laba shuruuda iyadana inaad isticmaali kartid shuruudahaas aad uga shaqayn kartid equations lagu sii doono oo lagu dhihi doono these two complex numbers are equal markaas xarfo lagaa qariyan aad raadin doonto. marka labada objective ayaan diradda saari doonaa. waxaan sharaxaynaa marka inagoo ka dhex bixin these two objectives oo aan isla fahmaynaa horta waa maxay su-aasha ah complex number muxuu yahay what's a complex number. complex numberku sidaan haddaaya sheegnay waa number loo qori karo in the form a plus bi in the form a plus bi wixii nuucan u qoran a plus bi waxa weeyaan xisaab nuucan oo kale tiray boos real number ay boos celiyo u tahay b-duna real number ay boos celiyo u tahay laakiin b-da hadii jeer waxay wadataa real number waxaa la yidhaahdaa number kasta oo kugu soo dhici kara any number plus minus jajab wuxuu rabaa. imaginaryna waxaa la yidhahdaa wixii wata calaamada marka qaybtan ayda wadato imaginaryga iyo qaybtan ayda wadana realka ah oo plus u dhexeeya ama minus u dhexeeyo yaa waxaa la yidhaahdaa intaas isla socota waxaa la isku yidhahdaa complex number. a iyo b waa numbero waa ujeeda kuwaas marka wixii number ah oo numberka keligiisa waa real wixii aydana waxaa loo yaqaanaa imaginary yaa loo yaqaanaa imaginary siday ku timid oo imaginary ergaas loo siiyey waa sharixi doonaa insha allah. satisfying the equation I square equal minus 1 ayduna markii la isku weero waxay leekaataa negative number minus 1 ayay leegtahay oo imaginaryga waxaa lagu qeexaa waa the square root of negative numbers. imaginary waa square root-ka tirooyinka negative-ka square root-kooda ayaa waxaa leedahay imaginary. waan arki doonaa for the complex number a plus b marka complex numberka nuuca u qoran complex number nuuca u qoran standard formkiisi waa eeda oo qaybta hore ah scolid waxaa loo yaqaanaa qaybta hore markuu nuucan u qoran yahay qaybta aan ayda wadan real part yaa loo yaqaanaa and b oo qaybta dambe oo ay wadatana scolid waxaa loo yaqaanaa the imaginary part yaa loo yaqaanaa. imaginaryga waxaa ku aqoonsanaya
lower case I italicized I-dan small letter ka oo italics-ka u qoran qaabka u qoran ayaa markaa iota erey oo markaa geliyo waaye oo asal halkaas ay ka timid marka qaybtaas ayada wadato waa imaginary part qaybtan ayada wadana waa real part halkaa marka haddii complex number lagu siiyo tusaale complex number tusaalahaan 3 plus 2 hayo kale which is the real part and which is the imaginary part qaybteen real qaybteen imaginary so you will say probably this is the real part and this is the imaginary part oo loo qaato imaginary real iyo waxay kala yihiin imaginary marka waxaan rabaa imaginary iyo real inaan jeclaa imaginary iyo real because complex number ka aan baranayno waa number ka kooban laba qaybood labada qaybna waa real iyo imaginary ku kooban yahay marka real ka waxa uu yahay imaginary waxaan ku jirnaa inaan concept horta aan fahanno si guud ama cilmi ahaan u fahanno waxa complex number ku yahay inta la shaqooyinka iyo aan guda gelin iyo equality iyo aan khulaas aadin aan si fiican u sii jilciyo complex number concept-kiisa si fiican u sii jilciyo marka numberka ugu weyn complex number markuu ka koobmaa laba qaybood qayb waxaa la yidhahdaa real qaybna waxaa la yidhahdaa imaginary realka marka sida haddaa sheegay waa any numberski aad hor isticmaali jirto o dhan waa realka waxaa ka mida natural numberska sida 1 2 3 4 5 realka waxaa ka mida waxaa la yidhahda whole numbers oo tirooyinka idila oo natural numberska zero lagu daray oo noqon doona real numbers waxaa ka mida fractionski jajabkii oo ah numbers in between the integerska numberada dhexdooda ku jira ee jajabka ah real numberka waxaa ka mida rational numbers negative numbers are kamida sida -3 oo kale real number waxaa la dhihi karaa irrational numbers oo ah any number oo loo qori karo in the form b over q wixii oo qaabkaa loo qori karo oo ah q-na aysan la mid noqon karin had iyo jeer zero aysan la mid noqon karin rational number real number waxaa kamida irrational numbers sida radical 2 oo kale sida pi oo kale oo qiimahoodu non-terminating uu yahay rationalka iyo irrationalka waxay kala duwan yihiin kuwaan looma qori karo nuuc ishoos dhig ah oo koreeyo hooseeya radical 2 haddii square root calculator-ka aa gelisid waxaa kuu soo baxaya qiimo non-stop oo haddii macnaa lawado aan dhammaanayn forever haddana ma leh pattern ma leh u gaar oo waxaa jira non-terminating laakiin oo repeating ah tusaalahaan 1/9 oo kale haddii yani loo qoro decimal loo bedelo ma dhammaanaysa xisaabtaas laakiin waxay ku soconeen repeating number ah soo laabanaya wixii marka oo sida tusaalahaan 0.33333 oo soo laabanayso oo 3 soo laabanayso rational ahaan waa loo qori karaa jajab ahaan waa loo qori karaa laakiin bio kale qiimaheeda markii calculator-ka la geliyo waxaa soo laabanaya xisaabo kala duwan oo haddana aan dhammaanayn forever weligood aan dhammaanayn waxa noocaas oo kaleeta loo yaqaanaa irrational rationalkana dabcan waa wixii jajab decimal laga dhigi karo haddii uu soo laabanayo tirada aysan dhammaanayn ay ku socoto pattern la yaqaano ay ku socoto waxaas oo dhan oo numbara aan sheegayo they are all called as real numbers dhammaantood waxaa la yidhahdaa real numbers waxaan rabaa marka imaginary-ga inaan isna ku jilciyo imaginary waxaa la yidhaahdaa wixii wata calaamadaas ay wixii wata imaginary wuxuuna ku yimid imaginary-ga squaring markii square iyo square root laga hadlaayo haddaan rabo the square of 2 inaan helo waxay noqonaysaa laba waxaan ku dhufanaa labo waxaa ii soo baxaya 4 haddaan rabo square of 1 inaan helo waxaan sameynaa 1 times 1 ayaan leeyahay waxaa ii soo baxaya 1 haddaan rabo the square of -1 haddaan -1 square waxaa ii soo baxaya -1 oo lagu dhuftay -1 waxaa ii soo baxaya 1
halkan waxaa arkaysaa mar walboo tiro la isku weero ha ahaato tiradaas tiro negative ha ahaato tiro positive jawaabtu waxay noqonaysaa positive. Any number when squared produces a positive result. sida halkan uga jeedo tiro kasta marka la isku weero waxaa soo baxaya jawaab positive ah soo baxaysa. laakiin ka waran haddii lagu yiraahdo xisaab marka la isku weero soo saaraysa negative ka fakar two numbers oo marka la isku weero oo la isku dhufto because square waxa waaye waxa la isku weerayo waa to find out the square of any number you have to multiply the same number twice. tiradii hadday positive iyadii unbaa laba goor isku dhufanaysa. that's square macnihiisu waa sidaas. ma sheegi kartaa marka tirada marka la isku weero soo saaraysa negative result. Can there ever be a number when squared produces a negative result? ma jiraa tiro soo saaraysa negative ayay si kasta haddii loo raadiyo you can never find any number marka la isku weero positive iyo negative positive ay soo saaraan. marka waxa waaye marka qaar waxaa dhacaysa xisaab minus wadata oo la rabo in cid laga saaro. square root iyo square kuna reverse process cagsi isku yihiin. tusaale haddaan rabo 1 inaan square rootkiisa helo waxaan leeyahay 1 uu kusoo baxaa ilaa 1 wuxuu ka yimid aan leeyahay hal ugu dhuftay soo haddaan rabo laakiin square rootka minus 1 xisaab minus one negative number in a radical maxaa soo baxaya negative number in a radical xisaabtaan uu jeedaa square root jirtaa laakiin minus ay wadataa. macnaheedu waa adoo lagu yiraahday sheeg laba tiro oo marka la isku dhufto soo saaraysa negative soo saaraysa ma jirto marka. sidaa darteeda marka si yani xal xisaab kasta ilaa wax walba xal ay leeyihiin yaa xalkii wuxuu noqday in laga fakaro imaginary unit. let us imagine tiradaas maadaama hadda aanay aan qiyaasno oo aan xaraf iskaga qaadano xarafkii loo qaatay markuu wuxuu noqday that Greek letter aya loo qaatay. marka waxaa yidhaahday radical minus 1 waxaan dhahno waxay la eg tahay aya la eg tahay ama si kale markaan u dhaho aan dhahno tiro marka la isku weero soo saaraysa minus 1 soo saaraysa waa I oo la isku weero minus 1 wax kale oo soo saari kara ma jiraan because square-kii yaa wuxuu ahay mar walba oo xisaab la isku weero waxaa soo baxo positive xisaabta keliya oo marka la isku weero soo saaraysa negative waa I. imaginary marka halkaas uu ka yimid si xisaabtii looga sii inta badanna quadratic equations marka laga shaqeynayo yaa waxaa mararka qaar soo baxaya qaybta discriminantiga minus b squared minus 4ac qaybta square root ku jirta yaa waxaa dhici karta in ay mar la ekaato 0 inay la ekaato b squared minus 4ac qaybta oo discriminantiga oo quadratic formula yaa waxaa dhacaysa mar inay la eg tahay 0 inay la eg tahay. marka ay 0 la eg tahay one real solution soo baxo. mar waxaa dhacayso inay 0 ka weyn tahay. marka waxaa kuu soo baxaya haddii number 0 ka weyn square root oo galo two real solutions kuu soo baxaya. mar laakiin waxaa dhacayso ay tahay less than 0 ay minus noqonayso sida minus 1 minus 9 oo square root ka gal see uga saaray waagii hore xisaabta form 2 iyo markii quadratic equation laga shaqeynayo oo quadratic formula la isticmaalo waxaa la yiraahdaa haddii xisaab minus wadato ay square root ka gasho waxaa la dhihi jiray no real solution aan dhihi jiray. no real solution waa sax real solution male waxay leedahay imaginary solution ay leedahay imaginary solution oo waxaa jawaabta la heli karaa in la isticmaalo I in la isticmaalo un baa la heli karaa waxaana loo baahnaa complex number waxaan noo soo socda noo soo uga shaqeyn doonaa quadratic equations inagoo ka faa'iidaysanayna complex numberka aan baranay waa marka square rootka xisaab minus wadato iyo square root inaan gasho. marka waxaan jeclahay inaad fahamtay imaginary iyo real inaad fahamtay. real waxaa la yidhahdaa all numbers dhammaan nambaradii aad taqaanay fraction ha ahaadaano rational ha ahaadaano integers ha ahaadaano whole number natural number irrational number all these are real numbers la yidhahdaa. any number you can think of. imaginary waxaa la yidhahdaa wax walba oo ay wata ayda ayaa imaginary ku aqoonsanaysa. marka realkaasi imaginarygaas oo la isku geeyana waxay ku sameynayaan complex number ay ku siinayaan oo marka complex number kuna qaabka ayuu ku qormaaba waa number loo qori karo qaabka loo taxo a plus b I wuxuu ka kooban yahay laba qaybood real iyo imaginary ka kooban yahay.
halkaa waxaan ku qeexnay waxa complex number uu yahay concept dabcan inaa fahamsantaha rajaynaya complex number waxa uu yahay qeexitaankaas ayuuna leeyahay waxaa marka aan rabnaa inaan u gudubno hadda waxaad dabcan aan rabaa inaan kaa siiyo tusaalooyin complex numberkii inaan waxaan rabaa aad awood u yeelatid inaad kala saari kartid qaybta realka ama una fududahay imaginary iyo real inaad kala garatid haddaan ku siiyo 5 plus 3i haddaan ku siiyo oon ku dhow u kala saar real iyo imaginary midkaan hore oo aan ayada wadan mar walba waa real midka ayada watana waa imaginary marka objectivekeena koowaad wax kale ma aha classify real and imaginary part complex number markii lagu siiyo qaybta realka inaad aqoonsan kartid qaybta imaginary inaad aqoonsan kartid waa inta objective koowaad objective-ka labaad ayaan rabaa inaan u gudbo insha allahu tacaala objective-ka labaad ayaan u gudbaynaa